Soomaali raali higato maanta reer xamaraan la hadla magaaladan dhibaatooyin fara badan ay qabtaa waxbarashada aan u joogno waa qayb kamida dhibaatada umul mashaakil oo magaaladan maxay tahay in badan kor iyo meel kale la aadi jirnay saakay waxaan ku fiirinaynaa magaalada Muqdisho indha kale waxa la leeyahay magaalada Muqdisho waxa ku nool 2 milyan dad waxay ku leeyihiin maya 2 bar kuwa waxay ku leeyihiin maya 3 kuwa kale waa ka badihayaan kaba soo qaad in ku noosha 2 milyan oo bini aadmi ah 2 milyan oo bini aadmi ah oo sida la og yahay bulsho beelaysan oo aan lahayn hal hogaamiye dhaqan bulshada magaalada degan ay u tagto oo taladiisa iyo toosaaladiisa la maqlo aan lahayn ka waran 2 milyan oo bini aadmi ah oo socota oo aan lahayn hal hogaamiye oo la maqlo oo bulshadu tiraahdo allay leh ugaas hebel imaam hebel garaad hebel malaaq hebel ayaa yiri aan lahayn oo dhibaato haday ku dhacdo u hadla oo dhaha maya 2 milyan dhibaatada ma qabato magaalo aan lahayn ka waran maalin kastana TV-ga waxa taagan oday madaxa maraweyn ku sita oo dhahaya waxaasan ahay laantay wax lama qaban karo 135 aan ku jiraa waxna ma taro waxna ma galo magaaladaanu waa inay yeelataa dad dhaqanka mas'uul uga ah oo loogu soo hagaago oo dadkana wixii qaldan ka qabta dulmigana ka difaac magaaladaanu waa 2 milyan iyo wax la mid malaha hal wadaad ama hal sheekh ama hal caalim oo la weydiiyo sheekhow anigoo weyse qaba islaantayda haddaan koob shaha weydiisto haddii farto meel farteeda iga taabato weysadu ma iga burto mas igama burto hal sheekho la weydiiyo mal waa muslim masaajidu waa soo muuqdaan maxaa qaldan magaaladan waa inay yeelato dad iyo cid lagu og yahay diinta islaamka oo mas'uul ka ah oo dadka u sheegta oo tiraahda waxaan waa sax waxaanuna waa khalad sida laguma sii jiri karo islaamnimana ma aha mid kastana wuxuu ku leeyahay wa'tasibu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa huwa yufarriq magaaladan kitaabka ilaahay waa inuu dad yeesho oo lagu og yahay oo isla ogol yahay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo magaaladan meel kasta sar dheeraa laga dhis jidadkii waa la dhis dhulkii dawladda waa la dhis ciid iyo shamiito iyo bir waa la iskor saaray laakiin magaaladanu oo 2 milyan ay ku nooshahay malaha hal nin waa shakhsi waaxid oo leeslo ogol yahay oo dadka dhibaataysan si loo kaalmeeyo wax lagu aamino magaaladan oo degantahay 2 milyan oo hal nin laga waayay oo la aamino si dadkan dhibaataysan oo dirbiyada jiifo oo guryaha leen oo ku jira cooshadaha 30 sano looga saaro oo loo dejiyo magaaladu ma qurxanaanayso nabadgelyada helibme inta sida hadda ay tahay saas darteed waxaan fariin u faraa sheegi ma ay calooshooda nimankan jooga bakaaraha oo saraha dhaadheer dhisay war sidaan isku dhaama xoolaha aad haysiin ummadda uga kaalmeeya oo dawlad dhisa oo in la dhiso ogolaada dawlad waa dawladiid waxay rabaan inay canshuurta la baxsadaan waxay isleeyihiin haddii dawlad timaado waydan canshuure war maya haddii dawlad timaado waydan canshuure laakiin dalkaan nabad noqonaya dad badanna waa imaanayaan xooluhuna waa kobcayaan ee ogolaada dawladnimada oo dawladda adinku dhisa haddaad dhisi weysaan si fiican la dhigayso mid baa bixi
meel buu lacag ka soo qaadan dawladdiiu iibsan markuu dawladda iibsadana bakhaarada idinka xira adinku cadalo waaweyn inta goorta xoolihiina ugu adeega dadkan aad xoolaha ka samayseen mar kale odo duub weyne sheekh imaan bad weyne ganacsada calool weyne saddexdaasoo ummadan inaad cadowgooda tihiin iyo inaadan cadowgooda ahaynina sanadka soo socdaa la kala ogaa 2021 saan xamar muqdisho ma sii ahaanayse diyaar garow waana laga adkaaha hadda isbedelin gabagabadii waa ogaa waqtiga waa ku dheeraaday wax badan ay ugu jira dhibaato badan aan dareemaa oo dadka ina dareemay wax kale meesha ma imaan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan inay fiicnaadaan waxaan rabaa dadka degan magaaladan inay ka baxaan dhibaatada 30 sano ka horna waa ku jiray dad waxay ku leeyihiin 30 sano maya 50 sano lagu jiro intii la keenay gulay oo yimid iyo habar durbaan tumaysa dhibaa lagu jiro magaaladan waa inay ka soo baxaan dad wax garta waxay joogtaa alaysa minkum rajul rashid magaalada muqdisho waa inay ka soo baxaan dad wax garta oo dadka degan dhibaatada ka saara si Soomaaliya dhibaatada uga baxdo